Tuwacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena Gungaar. Guud ahaan Gungaarkeennan waxa uu ka jawaabayaa isku raranka shakhsi argagixisa ah oo mar wada asteystay dhakhtar, sargaal, qabqabla qabiil iyo farsamooyin kale oo aan weli lagu baraarugin. haddaba u diyaar ahaw daawashada Maxamed Cabdi Nuur Jiiro Hagar Dr. Fanax dhakhtarka uma baahna inaan ku korsameeyo sheeko abuur sidaas oo kale isaga inaga kaafin doono diiwaanka ka yaala xagga hay'adaha amniga iyo garsoorka 38 jirkan ku dhashay Beledweyne Hiiraan waa kumadee magacaygu waxa waa Maxamed Cabdi Nuur Jiiro waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne isla Beledweyne aan ku koray waxaan barashada dugsiga Quraanka Kariimka iyo dugsiga iskuulkayga caadiga waxaan ku waxbartay iskuulka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Beledweyne gaar ahaan galbeedka ama xaafadda Oraxsinka sida loo yaqaan dugsiga sare waxaan dhameeyay 2003 aan dhameeyay dugsiga sare runtii markii aan dhameeyay kadib waxaan ahaa qof nolosha caadiga sida dadka caadiga u nool yihiin u noolaa iska ahaa waxaa jira iskuul Al-Yaasir la yiraahdo caafimaadka iyo waxyaabahaas laga barto ayaan 2004 iska diiwaan geliyay 2004 2005 2006 saddexdaas sano iskuulkaas caadi u dhiganay 2006 bilowgeedii ayaa waxa bilowday midowgii maxkamadaha runtii isagoo aan maleynaa inuu 5 bilood 6 bilood camal oo dhisnaa kadib meeshaas aan kaga biiray 2007 bilowgeediina waa tii maxkamadihii inta dagaal ay galeen Ethiopian iyo waxa la dagaaleen waa tii dagaal badan burbur meesha uu ka dhacay kadib waxa loo sii kala baxay marka in Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab maani marka waxaan raacay qoladan Al-Shabaab ka raacay Al-Shabaab marka raacay runtii maxkamadahana tababar ani aan soo maray hore oo tababar iska caadi jabhada uu jiray runtii markaas nolosha ama waqtiga xaaladda markaas way adkeed sida hadda marka qofka shabaabka uu qorto kaleete sida waxyaabaha basic loo barayo kaleete markaas ma jirin ururkana markaas oo cusbay dad isku cusub oo markaas isku yimaadeen way ahaayeen hadii qofka tababar hore uu soo maro kaleete waxa looga faa'iideysan inuu si caadi u shaqeeyo qeexid kale ayuu leeyahay dhakhtarka waana tan ama kaaga ah ee aan wada sugayno wixii juhdi iyo dadaal ku bixi jiray in la helo darajooyinka cilmiga iyo in la noqdo dhakhtar la gaar ah daaweynta xanuun gooni ah isbitaaliste xataa sargaalnimo waa uu ku tuntay waxaasi oo dhan anaa taabsaday camal ayuu isaga samaystay kadib waxaan u soo wareegay magaalada Muqdisho waxaan ka ambabaxay magaalada Muqdisho waxaan u ambabaxay wadanka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala waxaan bilaabay jaamacad waxaan wax ka bilaabay 2004 jaamacad ku taal wadanka Uganda lagu magacaabo jaamacadda Makerere University kulliyadda caafimaadka ama health kulliyadda medicine faculty of medicine and surgery waxaan dhameeyay 2011 bisha labaad 2011 bisha labaad waxaan ku soo laabtay wadanka runtii waxaan ka shaqo bilaabay isbitaal ku yaalo Gaalkacyo oo lagu magacaabo International Medical Center oo uu lahaa nin la yiraahdo Dr. Maxamed Jaamac Salaad Takar dhakhtarkii weynaa oo neurologist ah waxaan ka shaqeynay 8 bilood kadib waxaan ku soo laabtay caasimadda 2012 bishii toddobaad ayaan waxaan ugu baxay wadanka Uganda waxbarasho heerka labaad ama master's degree waxaan aaday wadanka Uganda wadanka Talyaaniga waxaan ka bilaabay master of neurology ama kulliyadda neerfaha runtii 12 bishii toddobaad ayaan bilaabay 2014 bishii toddobaadna waa ka qalin jibiyay wadanka ayaa dib ugu soo laabtay mana ka saari kartid oo kuma samaysna hay'ado joogtay joojinta been abuurka iyo sheegashooyinka faafay tan iyo burburkii dawladdii dhexe uu hogaaminayay Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre وقنعها قنع اسكلينا ما هني دوكيومنت اهنا ku qanciha hadda mobilkii marka soo qabato shahaadadii jaamacadda Talyaaniga original ku jirto shahaadadii jaamacadda Makerere original ku jirto shahaadadii oo kulli waxa sax ka mid dugsiga sare kullina waa wada original document ahana u haysta ina 2000 iyo xilligan Uganda aaday 2011 jaamacadda Makerere ka baxay kadib aan Talyaaniga aaday 2014 wadanka ka soo laabtay aan ma fahantay كل دوكيومنتكنا واحد استع ما فهمت حاجة كيما 8 dalka ku soo laabtay wixii ka dambeeyay 8 8 todobadii 8
toban shan toban lix toban toddoba maano toban iyo afartii wixii ka dambeeyey xoogaa aniga safarra dibadda aaday libaaxyadaasaa ku sheekeeya toban iyo toddobadii ku soo laabtay toban iyo toddobadii ilaa haddana isbitaaladii aan ka soo shaqeeyey waa isbitaal hebel waa isbitaal hebel waa isbitaal hebel agaasim hebel haddaa wacdo waa weydiin kartaa adi marka carriga dhex bixiye yeelkadeeda maxamed dhowr magac ayuu leeyahay sida maxamed dheere khaalid iyo mustafa caato laakiin maxamed waa qofkee maxamed dheere markii la dhaho mar waa dhakhtar mar waa nin wasaaradda caafimaadka u shaqeeyo oo idhikaarkayga qasmadu ku jiraa oo waax ka mid oo qaybta HIV-ga haysto waa nin sargaal oo gaashaanle ah waa nin nabad sugidda ka tirsan oo kabtan ah ma fahantay waa nin hay'adda United Nations hay'adda UNDP u shaqeeyo maxamed dheere waa shantaas sheegashooyinkaasi oo dhan waa u martay bilowgii uu u soo gacan galay hay'adaha amniga ee Maaj 13keedii 2020 waxaase marin habaabintiisii soo xiray hoggaanka xiriirka arrimaha dibadda ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib 15 May 2020 isbeddelkii hay'adda ku yimid. There is no person of the name of Mohammed Abdinoor Abdullahi has been ever submitted. معناها magaca la yiraahdo Mohammed Abdinoor ma jiro wiligeed lama diiwaan gelin magacaas qof wato sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maba jiraba faculty ah general medicine and surgery iyo in muxuu ahaa cilmiga neerfaha ay bixiso facultiyadeeda kama mid ahaba markan inta aanan kula aadin dhakhtarnimada iyo sida uu ku doortay dhakhtarka neerfaha ee dhaqaatiirta ka shaqeysa ay ku yar yihiin guud ahaan Soomaalida bal aan isla aadna tababarkiisii iyo dagaaladiisii jabhadnimada waxa uu cagta soo mariyay gedo gaar ahaan beled xaawe iyo baardheere waxa uu sidoo kale ku soo qaatay xilligiisii jabhadnimada jubbada hoose jubbada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan marka taa marka laga yimaadana aniga intaanan maktabkan amniga ku soo biirin hadda marka loo fiiriyo madaafiicda haddii qoriga dhashiikaha ama zuuga ama shilkaha ama BKM-ka waxyaabahaas waa ku soo dagaalamay markii hadda xasan sheekh oo shabeelladan hoose oo dagaalkii Indian Ocean u dhahay ninkii meeshan jidku u fadhiya ah hadda maqashay hadii kale maxamed dheere ma fahanti ninkii jidku u fadhiya ah marka so think BKM-kana ku dagaalama suugaasna ku dagaalama dhashiikana ku dagaalama waxa uu noqday dilaa halis badan xagga gaadmada marka laga hadlayo ikhtiyaalaad waxa uuna ka mid noqday dhalinyaradii ugu horreysay ee kadib soo shaabixii al-shabaab ka howlgalay koonfurta Soomaaliya ma aha in la iska tuuraya xabadda waa in lala doonaa meelaha ugu muhiimsan dhiska xiriirka aadanaha shan tilaabo marka u jiray ayaa waxaan go'aansaday inaan xabadda ku bilaabo macnaha waxaan marka haddana fakaray mar waliba fiiri qofka shan tilaabo uu ku jiro waa adag tahay inaad disho sababta ma taqaanaa qofkan shan tilaabo ku jira mar allaala marka bistoolada la soo baxdo mishinkaasoo dhan fashilkiisu wuxuu yahay hal mar madaxiisu saan dhaho ama oo movement uu sameeyo ma garatay maxaa marka asal ah waxaa asal ah 3 tilaabo 2 tilaabo tilaabada saddexaad xabad inaad kaga bilowdo waa ifanta marka aniga marka waa tarmaariyay ma ogtahay hadi 5 tilaabo wax laga yaabaa markuu shanqartaada dareemo inuu soo jeesto hadduu ku arkana 3 mid ay noqonay inuu istuuro inuu dabakaayada galo inuu cararo hadduu cararo mar laamigaas gaaro qayliyane waa fashil macnaha ma fahant adiga 3 tilaabo marka adiga 1 2 3 mid saddexaad aan ku taagana xabad ku bilaabo macnaha ma garat runtii uu sii jeeday marka ma ogtahay marka amniga ma ogtahay qofka tababarka la siinaayo qaybta muhiimka oo aadan fahansanayna waxay tahay waxa la rabaa xabadda ugu horeyso hadaa doonto kor u rid xabadda labaad jirka marka 4 meel marka loo dhigo meesha ugu muhiimsan qofka inaad ka toobato oo ku sheega marka hadda kula yaabaya banda Soomaa ku sheega marka fiiri feerahaaga meesha danqaydo ee ka feeraha ku dhamaanayaan ka soo bilow waa feeraha halkan ay ka soo bilaabanayaan ilaa madaxa waa haddaan aniga gadaalkaaga imaadane
laftaan xiriirta dhabarkan kaa shiishaa xitaa haddii laftaas aan xabadda kaaga dhufto inaa badbaado 2% waay macnaha haddii ay ii suuro gelin waa inaan halbowlaha maxaa la dhahaa qoorjarka meeshuu ka bilaabanayo mifahant waa laba soo maaha midda saddexaad qofka inaad qadaadka ku dhufato mifahant waa la sii kala qaado waxaa loo kala qaado waxaa la yidhi qofkan haddii dhabarka lagu dhufto waay dhabarka waxaa la yidhi mar waliba dhabarka qofka lagu dhufto tusaale qofkan la dilaayo malaa'ig ma ahayn moogtahay wadaad oo kitaab cumdatul axkaam kitaab masaajidka akhrinayo maaha moogtahay sababta loo dilayo qabaa ma fahantay waa sababta loo dilayo maxay tahay sababta loo dilayo waxaa waaye ururkan ayaa wuxuu u arkay inuu khatar ku yahay soo ma xitaa hadduu fakado xafaayad ha loo xiro maanaha mar waliba qofka dhabarka laga toogto maxaa lumaya kontaroolka jirka oo dhan aa lumaayo bareelis qofka noqonaya ma fahantay maxaa kaloo lumaayo hadalkiina waa lumaya muxuu noqonaa marka qof hadduu hadlaan carabka inuu cuslaado taas marka maxay meesha ka saartay xitaa hadduu fadhiga ka talin lahaa oo talooyin la weydi lahaa xitaa in meesha laga saaro waa la iska sheegtaa diinta mooye haddii ay gaalnimo kula gelayso qofka aad dili rabto waa loo tumasho taga ay iska aaminsan yihiin kooxda ka shaqaysa dilalka gaadmada ah qofka aan u yeeraho leeyahay ila qayl aan leeyahayna kaartada aan ku qayliyo qayb ka mid ah fara soo gasho fartaasaan waxaan rabaa markaan marqaano qaraarka uu igaaro fartaas inuu ii bixiyo tilmaamtaas uu ii bixiyaan ka rabaa sideedaba aniga bilaa iskeersan uma qaylo qayaalina kuma qaylo markaan qayilaayo qofkaan la qayilaayna waa qofaan aniga xog aan ka rabo markay qaraxay joogtana isbitaal muqdisho ku yaala ayuuba u jiiftay dhaawac ka soo gaaray qarax uu farsameynayay maxamed cabdi nuur jiirow hagar marka waxaa jiray miino aan ku sameynaynay jirkaan 20 la ah ayaa jirtay marka aniga wallahi dee cabaara u jiray ma ogtahay waxaana marka la sameynaa marka hore waxay leeyihiin qiyaas waxay leeyihiin bowdarka qabadooda iyo waxa qaab la isugu daro waxay leeyihiin qiyaas mar waliba qiyaastii waba lagu sheegaaba mar waliba maktab qaraxyada ka shaqeynaysid inaad dhimanto waa u dhowdahay inaad bareelis noqotana waa u dhowdahay marka adigoo sidaas og inaad ku gashaa la rabaa macnaha ma fahantay marka wallaahi dee waa dareemo su-aasha keliya cabsida aan dareemo waxay ahayd ma ogtahay dhaawac ma qarsoomaayo say wax u dhaceen maxaan kugu dhacayo marka dee anigana midaanba sameeyo oo aan kaga fiicinaa dadka kale isbitaalaa galay teleefanadii waa dansaday ma fahantay markaan normal soo noqdane waa dadkayga ku soo laaftay mar ayaa lagu xareeyay xarunta dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha ee beledweyn ku tiilay laakiin derbiga ayuu ka booday si uu markaa isaga xaadiriyo fagaarayaasha dhiigdaadinta ah markuu i gaaday wuu i qabtay meel dhaqan celin ah oo duleedka magaalada ah uu i geeno marka kadib waa marka aniga cali gacmeyga xogteeda wuu yaqaanaa ilaa hadda markaa weydiiso wuxuu ku leeyahay ninkaas aniga qataran ka aaminsana markaa weydiiso ilaa hadduu dhahaa meeshii markaa tagay waxaan idhi miyahow adiga fikir waxaan keenay in meeshaan aan ka boodno meesha marka habeenkii dambe dhallinyarada intaan istashkiili dhallinyarada anuu hurdaha iga tagay inay boodeen adiga meeshii waa ka booday waa ka soo tagay shabaabkayga dib ugu soo laabtay kadib waxaa layga wacay marka jubbada dhexe jubbada isaaku waa layga wacay waa 17 dhamaadkeedii waa 18 bilowgeedii waa shabaabnimo miiran intaasi waxbuu dilay waxbuu qarxiyay weeraro ayuu ka qayb galay tababarro ayuu soo qaatay waa wax iska caadi ah maqalka sheekooyinkaasi 12 sano ayna dhaaftay laakiin maxaan caadi ahayn jawaabahan ayaan wada sugaynaa imaanshihiisa muqdisho ee sanadii 2017 waxa ay dhalisay in uu la yimaado hal abuur dhagareed farsamo la isugu qasay dhiigdaadinta iyo xirfadaha loogu ixtiraamka badan yahay adduunka iyo Soomaalida dhexdeeda ayuu dig la soo yiri Maxamed Deere
xamarna la ii soo bedelay fursadda kuu furan maxay tahay hadda fiiri midna ogowba mogta adi saa hadda adi u fakaraysid ani u fakaraya mogtahay ninkan ma shaqeeyo gaariyo wataa guri qaaliyo degan yahay waa raaxaystaa yurub lagama biilo qoyska waa la fiirinayo ninkan intuu ku xiran yahay dadka buu kaliya markay ugu yartaa hadii xitaa wax ka lagaaga shakin ninkan dadka buu kaliya kala baxa waa lagu leeyahay marka waa inaan la imaado meel dabada aan la gashaa dadkaagana ay kugu bartaan birina dadkaaga ay kugu difaaci karaan inay tahaan aamini macnaha intaas keliya kuma ekaysan ee waxa uu sii salfaday cid kasta oo uu isleeyahay waxbay ku tari kartaa haddii aad u gacan gasho dowladda waxauna isticmaalay jeebkiisa isagoo oday dhaqameed iyo saraakiil dowladeedba xoogaa boqolkii badanaysa u kuusay marka mar waliba sideedaba ani 3 qof baa dhaqaaleystaa marka ugu horeysa saraakiisha oo dowladda ka shaqeeyo mooryaanta qabaa'ilka uu leeyahay iyo nabadoonnada saddexdaba ani waa dhaqaaleystaa xaggooda laygama soo maro ifaan soo thinking haddii waxaan doonaa ahaado haddii beri laygu dhago nabadoonkayga ani waxaan u sheegay si uu ku dhagan yahay aysan naga firaarin sheekada ee aan ogaano sidee ku timid sheegashada dhakhtarka neerfaha iyo la falgelidda daaweynta xanuunka neerfaha marka soo thinking ani waxaanan difaaci karin oo beri ka maalin haddii wax ka yimaadaan maba taabsan kariba waa ku sheegiba haddii hadda ay dhahdo maxaa caddaynaa inaad dhakhtar tahay sulubaa joogo durduraa joogo diburaxmaa joogo dokumentigaygina waa kana adi marka iga dhexsaa dhakhtar matiis maba lay dhihi karaa mugta that's why aan u doortay macnaha kulliyadan xirfad kaleeto hadda fiiri hadda iraahdo ani waxaan ahay dhakhtarka internal medicine ka ah internal medicine xamar waa la yaqaanaa konton dhakhtar joogto kala nooc waa la yaqaanaa laakiin internal medicine cusub imaaday hadduu ka soo baxay waa lagu baaraano laakiin qofka neurologist waa magaciisa fanaxan la inuu cusub yahay laga yaabaa naga daa ma lagu sii mashquulayo waxaase kugu dhalanayso soo kama horeyso in wax kaaga bilaaban yihiin ka hor waxa aad rabtid inaad sheegato yaraantiisa iskuul caafimaad iyo isbitaal beledweyne ku yaallo ayuu ka soo dhigtay culumta la xiriirta caafimaadka waxa uu sidoo kale ka bartay iskuul gaar ah oo muqdisho ku yaallo arrimo la xiriira caafimaadka youtube-kana wakhti ayuu geliyey si gaar ah baarista umuuraha neerfaha waxa uu isticmaalayay dictionary u gaar ah bahda caafimaadka ani markaan yaraa horta xirfadan caafimaadka aad u jeclaa taa markii laga yimaado markaan kuleejada dhiganayna macad waxaan jiray oo pre university la yiraahdo jaamacad u dhigmo oo Al-Yaasir la dhaho macadkaas horta ardaydii ka aflaxday ugu horeysay waa ahaa markii laga yimaado taa waxay ii suurtagelisay hadda la hadlaayo khaliinada haweenka oo C-sectionka waa sameeyaa waaba ku sheegay macad la yiraahdo Muqdisho Medical Imaging ka bartay akhrinta radiology-ga soo kuma dhihin oo ku yaalo wuxuu ku yaalay meeshan hotelkan la leeyahay Giyajo dabaqa qaybta kore deganaa waxa la Muqdisho Medical Imaging akhrinta radiology iyo waxyaabahaas ultrasound-ka ECG iyo akhrinta waxyaabahaas radiology-ga dadka baraano ma fahanti marka wuxuu la fududeeyay adiga wuxuu ku leeyihiin ma fahanti midaada kale mid ogow report-kan hadaa fahmi wayso waxa sameynaysaa report-ka ku qoraysaa waxa jira medical terms of terminology waxa la dhaho terms of terminology-ga soo gelinaysaa erey oo kugu sheega report-ka qofka oo lagu keenay erey oo kugu sharxaa ma fahanti laakiin cilmiga neerfaha neurology-ga waa buugaagtiisana waa akhriyay kilibyo dhaqaatiir waxa jira Dr. Nelson oo neurologist waan wax ka fahmay ka waran haddii falcelin qaldan ka soo noqoto daawo aad bixisay sidee ayay kula tahay inuu u maareyn jiray Dr. Fanax Google search marka soo thinking Google kaaba dhakhtar kale ama hano what is the treatment of dementia maxaa dementia xasuus la'aanta lagu daaweeyaa wuxuu ku leeyahay dementia waxa lagu daaweeyaa ABCD dawadan lagu daaweeyaa laakiin the best waxa dawadan marka the best dawadii aad ani waa qoray team baran oo ku dhuftay marka ku xanuunsan hadaa doonto dhakhtarka marka neervo dhihi karo dawadan dementia looma isticmaalo adiga keen qariib ma aha in qof iska xoogsada laakiin waxaa tani ku hoos duugan dhigdaadin iyo qorshayaal halis ku ah diinta dadka iyo dalka xeandaabka sida weyn loo ilaaliyay ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayuu dalaq dhahay isaga oo dul maraya darawalka xildhibaanad hore waxa uu lahaa hal ujeedo oo ah dilka Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta
oo xilligaasi maxbuus ahaa. waxay ku suurtagalay waa ku sheegano waxay ku suurtagalay adeerkaygan gaariga buruufta iyo qooqanta uu wado 24 saac gudaheed gashaa ma samee ani marka istidlaac sameynayna istidlaac lagu sheegay saddex maqsad ku aaba koo meesha la galay sawir ka keento labo meesha inaad xog ku filan ka bixiso sawirkii waa ka qaaday waliba sawir gudaha ahaa jiray oo intaan habeenkii meesha koro sawir aan ka qaaday waa jiray sawir kale to markaan meesha maray sawir aan ka qaaday waa jiray markii gaariga yiraniyo muqtaar saan markii gaariga markuu muqtaar arintiisa bilaabo fursad weyn aan u arkay macnaha fahmad waxa yiraniyo ninkan dawladda maskiinka maxay u haysataa markaasuu yiri ninkan aasho isaga dandareysan yahay askar nafl xataa muwaardiis fahmad askar nafl xataa muwaardiis askarta waardiis ma been kaasuu yiri 7 askari oo warana waardiis oo dhax marka inta marka laga soo gudbo aniga shaqadeedii waa dhameeyay moogtahay waxa marka imaaday see loo galaa iyadoo taagan tahay ani marka meelaha istidlaaca ku sameeyay qaybta guud iyo waxay ahayd moogtahay iyo muqtaar ay ahayd wasaaraddan arrimaha gudaha iyo amniga oo tale team kale taa loo diray marka teamkaas kale taa ku shaqo laha shaqada marka ani markaan soo gabagabeeyay ii soo dhamaatay ay u badan tahay shaqadii in macnaha as practical ahaan loo sameeyo waa tii moogtahay aniga Beledweyne la diray dhammaan saraakiisha reerkiisa ee uu dulmaray waxa uu u arkaa dhoohanayaal aan marna u qalmin darajooyinka ay heleen laakiin waxaa loo soo dhaweystay ehelnimo inkastoo uu ka dhabeeyay in argagixisada wax ehel aysan lahayn waa kan mid ka mid ah qaraabadiisa soo dhaweysatay laakiin uu ku dulmaray dhagarta khawaarijta aniga horta telefoonada aad uma aqaan midkaas uma aqaanaa bas telefoonka weyn oo laba xabo wada jira labada xabo ani baawarka ma ila saarno guriga maan ka soo baxna iyo markaan dabka meelahaas aan geey jiray asiga oo iga hal jiray intaas telefoonku ku mashquulsiya meesha uu diray dhag uma sadsiina guriga markuu ibaado fiidka hore kursiga meel gees dhigana mobilkaas ku mashquulsanaa saddex saac markii la gaaro oo xaroojin mobilkaas oo kaarta ku qab wax hal uu leeyahay ma haya ma sadbas markii aan guriga aan ka tagno oo guriga aan ka tagno magaalada aadno wuxuu li adeer ma quraanaysa guriga aan soo quraanaya adeer ma quraani adeer kaalan qadaynay inta baqaydana fiicana wax ka cun tanahi macana wax ka cun doof markii la gaaro wuxuu leeyahay adeer anigu meelahan soo daahe ee lacagta qaadka ku tuura xafdiska aad lacagtii uu tuura qaadka xamroon soo qaada guriga iska tagay laba bilood amal wallahi aan qaad aan lacagtii ka bixin asaa ii qaaday qaadka asuguna hal mar jaad oo cunay hal mijin oo jaad oo hal maalin cunay oo fanax la socday fanaxaas oo haram cadka yarkii gurcaal ku dhintay oo la socday saaxiib uu lahaay ninkaas uu saaxiib lahaay ninkaas uu saaxiib la yahay oo aniga si dhawayn ninkaas jira bilihii 7 iyo 8 ee sanadii 2021 qaraxyo ka dhacay goobo dad danyar ah oo lagu shaaxo ayuu sahmiyay Maxamed Cabdi Nuur Jiro qaraxyadaasi ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee Muqdisho Febraayo 2022 qaraxyada la eegtay kolonyo reer waqooyi ah oo ahaa ergooyinkii doorashada ayuu ismiidaamihii ku hagay gaar ahaan qaraxaasi ayaa ka dhacay algaabta isla Febraayo 2022 weerar dhalinyaro kubad ku daawanaysa lagu qaaday ayuu qayb ka ahaa horjoogana u ahaa kooxdii weerarkaasi qaaday garas baalay dowladka Muqdisho ayuu weerarkaasi ka dhacay waxa loo diray Beledweyne si uu fuliyay dhacdooyin argagixiso oo halis badan laakiin xildhibaanad uu ku dulmiyay darajooyin iyo shaar dawladeed oo been abuur ah ayaa u sheegtay hay'adaha amniga inuusan ahayn Jiro sargaal sabab uu lama galay u soo garanay tahay halis amni waana sababta loo soo qabtay iyadoo la iska fogeynayo awoodda jufadiisa hoose uu ku lahaa waxa uu gacanta hay'adda nabad sugidda soo galay Maaj 13keedii 2020 shaqadeedii soo hartay shaqadeedii markay soo hartay waa cabshukurku waa ka soo tagay lama galay ku soo laabtay waa qaday waa baxay markaa baxay anigoo bacalaha ragga waa taqaanaano oo tilmidiin inta ka jir bacalahaas iska soo jeejeedo anigoo maraayo qolo nabad sugidda boodays dhab aleysi markaas la ka dhar caadi ah wata dhab aleysi alay soo wada nabad sugidda lagu haray telefoonadii waa leega damiino
ima waraysanin waxaan sewa kasaayaa adiga nabasugid ma aniga xiri kartiin aniga nin gaashaan laho taliska xoog ka tirsano 14 Oktoobar yaa ku taliyo ku ah tawan Axmed Gurey 14 Oktoobar 12 Abriil moosi maadano tawan Axmed Gurey intee taliska intee waa waxaan deganahay iri meeshii ay deganaa imaaraadka yaa taliyo guud ku maxamed sheekh hada waxba isku tuusid ma fahanti nimanka waa yaabeen ma waxay dhaheen ninkan wuxuu sheegay run waay ma orday meel kale orday waa kala ayagoo ideyn rabo inuu sawirada meel kale u direen ma aqaan alla ninka ma naqaan isla markiiba xamra la soo carin faanti 19 January sanadkan 2023 ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay dil toogasho ah Maxamed Cabdi Nuur Jiro Hagar Dr. Fanax inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena Gungaran oo Cabdiqaadir Ciise la socodsiinaya saaxiibada xagga farsamada iyo soo saarista barnaamijkayga caawiyana waan u mahad celinayaa mid lamid ah intaanu ku kulmayna nabadgelyo